assalaamu calaykum. waxaan halkan kuu soo marinayaa kalmado aniga iyo adiga mawduucan daawanayana taabanaya labadeennaba. waxaan jeclaan lahaa in aan leeyahay 1,000 naf kadibna aan u diro 1,000 magaalo oo shacabkeenna ku nool yahay kadibna mid kasta dhegta ugu sheego kelmadahan. waa kelmado laga yaabo inay anfacaan wiil ama gabar raadinayo waddada horumarka oona baahan keliya cid dhiirigeliso. walaal ma isweydiisay waa maxay ujeedka aan noloshan ka leeyahay? waa maxay waxa aan raba in aan xaqiijiyo? weligaa si dhab ah ma isu weydiisay anigu maxaan rabaa? waa maxay waxa aan raba inaan xaqiijiyo noloshan? ma ii degsan yahay qorshe aan naftayda wax uga beddelayo? hadda qalin soo qaadatid si run ah isu weydii 5 sano ka hor meeshii aan joogay miyaan weli taaganahay mise horumar ayaan xaqiijiyey oo waan ka gudbay sidii aan shalay ahaa? haddii aadan wax horumar aadan xaqiijinin welina aad meeshaad iska taagan tahay, waxaa la gaaray wakhtigii isbeddelka, wakhtigii go'aan qaadashada. noloshu ma ahan keliya hal shaqo, hal meel inaad iska taagnaato adigoo rajaynaya inaad horumarto. waxaa jirta xikmad Ingiliish oo leh haddii aadan jeclayn meesha aad joogto, dhaqdhaqaaq oo meesha ka tag, ma tihid geed meesha ku mudan. mar la qeexaya doqonnimada ayaa lagu tilmaamay inay tahay ku celcelinta hal ficil adigoo natiijo cusub raadinaya. in aad weligaa meeshaad iska taagan tahay laakiin aad rajaynaysa inaad horumarto. horumarka xaguu ka imaan wax isbeddelaba maadan samaynine. doqonnimadii ayaad ku soo celcelinaysaa shalayta aad ku jirtay. waad soo kacdaa, meeshii baad aaddaa, sidii noloshaadu waa rootiinkaas. wax horumareen weligaa ma gaaraysid. haddii aad rabto inaad xaqiijiso guul la taaban karo, wakhtigaada ku bixi waxa aad jeceshahay. waa maxay waxaan jeclahay? waxa aad mawhibada u leedahay. waxaa la dhahaa qofka haddii uu ka shaqeeyo ama uu isku hawlo waxa uu jecel yahay guul ayuu ka gaaraa. haddii aad jeceshahay qoraalka, alifaadda, baaritaannada, muuqaal samaynta, sawirka xitaa, haddii aad leedahay cod fiican, waxa aad ku fiican tahay dadaal dheeraad ah geli. waxaa hubaala in aad midhaha guran doonto. ilaahay ma dayaco dadaalka ciddii dadaal samayso. waxaan wax yar la hadli rabaa Soomaalida qurbaha joogto iyo weliba kuwa gudaha dalka joogo. haddii aad ka shaqayso shaqo aadan wax horumar ka gaaraynin, iskaga tag. ilaahay ayaa israaqada bixiyo. waxaadna u jeesataa howlaha gaarka, sida inaad bilowdo mashruuc kuu gaar ah, inaad fikrad cusub la imaado. haba ahaatee ugu yaraan miis aad alaab saarato ayaa kaaga fiican shaqo aadan wax natiijo aadan ka gaaraynin, wax horumareen aadan ka gaaraynin oo wakhtigaadii cumrigaadaad ku dayacdo. weligiin ma maqasheen qof shaqaale ah oo qani noqday? dhammaan kuwa qaniga waa dadka leh howlahooda iyo mashaariicdooda u gaarka. milkiilaha Facebooka Mark Zuckerberg I felt alone. And worse, it was my fault. I wondered if I was just wrong. An imposter, a 22-year-old kid. markii ay u imaadeen fikradda Facebook 2004 habeen iyo maalin ayuu dul fadhiyay kombiyuutarka si uu natiijo u gaaro. heer uu waxbarashadii hilmaamay kana tegayba jaamacadda uu iskaga taga. ugu dambaynna waa ninka balaayiinta dollar haysta maanta. Facebookaasna leh shirkado kalena sii gatay. haddii shaqaale uu ahaan lahaa weligiis heerkaas muu gaareen. weliba maadaama kombiyuutarka uu ku fiicnaa markiisii hore, waxaa shaqooyin u soo bandhigay shirkadaha Microsoft asagoona shaqaynin, laakiin wuu diiday. sababtoo bii'ada uu ku dhashay ayaa ah ama uu arkayaa dadka in inta guulaha xaqiijisay dhinaca maaliyadda ama dhaqaalaha ay yihiin dadka howlaha u gaarka leh. sidaas darteed wuu diiday. qof wacyile ayuu ahaa. wuxuu yidhi hawshayda ayaan hormarin Facebook, ma raba shaqaale inaan noqdo aniga. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso dad ayaaba shaqo la'aan ah, adigana waxaad leedahay shaqooyinka ku beddela howla idin gaara. shaqada caadiga ee aan naqaano ee ah in shirkad ama qof loo shaqeeyo waa waddada dib u dhaca, faqriga, weligaa dayn kama baxaysid iyo walwal iyo walbahaar. wax kuu barakoobayana malaa, wax natiijana ma gaaraysid. nin ayaa yidhi dayn ayaan qaatay anigoo shaqaale ah. dayntuna waxay soconaysaa muddo 30 sano ah. waa inaan 30 sano ku bixiyaa. waa inaan weligii u noolaada ayuu yidhi inaan dayntaas iska gudo. laakiin wuxuu yidhi shaqadii ayaan ka tegey kadibna waxaan bilaabay ganacsi iyo howlo ii gaaraya mashaariic. wuxuu yidhi muddo 3 sano keliya
ayaan iskaga bixiyey deyntii 30 sano igu qaadan lahayd haddii aan shaqaale iska ahaan lahaa. waad fahmi kartaan xikmadda meesha ku jirta. ka xarow xargaha iyo silsiladaha labalabaynta iyo dib u dhigidda. noloshu waxay u baahan tahay u soo jeesho dhab ah in aad gacmaha xaydato. ilaahay awoodo aan la soo koobi karin ayuu ku siiyey. ha ogolaanin in aad safka dambe ee bini'aadamka ku jirto. hurguf marada kadibna iska rid caajiska iyo hurdada meeshana ka kac. nin ayaa ku qayliyey faaqdim walaa taqbal bicayshin munaqasi famaa faaza biladaati man laysa yuqdimu. weliga ha aqbalin nolol naaqusa. ha aqbalin inaad meesha ugu dambaysa ku noolaato. ha istaagin. noloshu ismiidaamin ayay u baahan tahay iyo dhiiri inaad dhiiran tahay. macaanka iyo guushana waxaa hela keliya qofka u hura nolosha dadaalkiisa iyo waqtigiisa. walaalayaal, qof kasta ha isku dayo inuu shido dhuxusha dadnimada ee ku doogan si uu u huriyo dabka howlgalka iftiinka noloshana u baaho. ummadaha kale maanta waxay nooga duwan yihiin wacyigelinta in ay jiraan kumanaan dad ah oo muhiimadoodu tahay in ay shucuubtooda ku buufiyaan kelmada dhaqaajinaya dhallinyarada si ay uga kacaan maqaayadaha waxna iskugu falaan. laakiin annaka arrinkaas ma lihin ama wuu nugu yaryahay. waxaan leenahay keliya dad live Facebook ka soo galo kadibna qayliyo. markii laga reebo dad fara ku tirisa dadkuma wada xumo, laakiin nasiib darro ummaddeennu way sii jeedaa wayna hurda. isweydii noloshayda 5 sano ee soo socota siday noqon doontaa? sidaan miyaan iska ahaan mise waxbaa iska kay bedeli? arrinkaas hadda ayaad ogaan kartaa, go'aankiisana gacantaada ayuu ku jiraa. haddii aad rabto inaad sidaadan iska ahaato wax guulan aad xaqiijinin, waxba ha samayn, gacmahana isi saaro, 24 saacna Facebook ku jir. laakiin haddii aad rabto inaad gaarto meel wanaagsan, hadda qorshaheeda deji, howlgalna haddeertaan. waxaa la yidhi haddii aadan qaadanin go'aanka maamulidda noloshaada, dad kale ayaa kuu go'aamin sida aad u noolaanayso. cumrigaadana waxaad ku dhammaysan inaad ahaato qof ujeed la'aan iska nool oo aanan wax hami a lahayn, wax ujeedana ka lahayn noloshan. walaalayaal, ugu dambayn ballanteenu waa inaan wax isku falnaa, rag iyo dumar, wiilal iyo gabdho. waa in aanan aqbalin nolol naaqus ah. in aad maskaxdaada ka shaqaysiiso. in aan qaadanno go'aanno wax ku ool ah oo geesnimo leh weliba, si aan nolosha aan hadda ku noolnahay ama ku jirno u beddelno. qodobka ugu horreeya waa inaad qaadato go'aan adag, in aad noqoto qof cusub. ninkii shalay ama gabadhii shalay ujeed la'aanta iska noolayd, in aad u beddesho qof nolol dhab ah ku jiro oo qorshooyin kala duwan u degsan yihiin, oo leh ujeed uu rabo inuu xaqiijiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.